iqraay caawa floriskeenna iyo dhammaan asxaabteena waxaan u hayaa sheeko aada u xiiso badan u hayaa sheekadani caafimaadka qeybay kasoo gelaysaa laakiin waxay dhex martay gabar reer mudug ah iyo wiil reer xamar ah oo dadkan reer xamaraawiga ayay dhex martay sheekada waxay ku saabsan tahay gabadha ayaa maalin maalmaha kamid a waxay dalxiis usoo aaday xeebta liido dalxiiskadan wuxuu ku saabsanaa waxay rabtay inay xeebta kusoo aalimiitayso waayo gabadhu waxay lahayd uur 9 bilood ayay lahayd gabdhaha Soomaaliyeed waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxaa kamid ah gabadha markay 9 bil ay gaarto inay socotaha oo si foosha ugu fudaato waana wax caafimaadka saxsan waaye si cunuga oo descendant usoo samaysa fiican marka gabadhii iyadoo xeebta iskaga aalimiitaynaysa oo iska socota gabadha marka waxyaabaha oo sheekada cajiib kale waxa waaye gabadhu way soo libisatay waxay u soo libistay si cajiiba waliba waxay soo qaadatay dhar aad ugu dhaganay soo qaadatay oo waliba caloosheeda iyo jirkeeda soo muujinayo waad qiyaasi kartaa marka gabar 9 bil uur lahayd markii dhar ku dhagan ay qaadato caloosheeda waa qiyaasi kartaa banaanka imaanaysaa marka gabadha markii way iska almiitaynaysay xariif oo dadka raxamarka ayaa ka helay marka gabadhii maadaama dhar ku dhagan ay soo qaadatay gabadhi caloosheedii ayuuba ka helayba gabadha caloosheeda qaabka hore ugu soo kuusan tahay ayuuba jeclaadayba markii ninkii wuxuu sameeyay gabadha markii horteeda ku imaaday maadaama xeebtay ku almitaynaysay meel koro ka arkay wuu soo socday horteeda ku imaaday soo u soo socday gabadhii horteeda soo istaagay wuxuu iska soo jaray wuxuu dhahay abaay horta wuu salaam markii ugu horeyso abaay ii waran xaaladada ka warnoo dhahay waxay dhahday ha abo waa fiicanahay alxamdulilah ninkii wuxuu iska soo jaray wuxuu dhahay abaay calooshaada kulehe qaabka ay hore ugu soo kuusan tahay aanba ka helayba wuxuu taagay calooshaada qaabka hore ugu soo kuusan aanba gabdhaha reer mudugna waxa waa moogtahay aad ay cajiib u yihiin wallahi mararka qaar waxaa moodaaba in caqligooda fantastic uu yahay gabadha waxay dhahday abo masaasaha ma caloosheedaba ka heshayba ha wallahi calooshaada qaabka ay hore ugu soo kuusan tahay waa ugu sii adkaysano aanba ka helayo taagan yahay gabadh intay fikirtay ayay hal mar usoo jeestay jawaabta asis haddaan kuu sheegay ninkii qandhada qabatay San Martina lagu keenay gawar jawaabta asis maxay dhahday mataqaanaa gabadh intay nink usoo jeesad kule aboowe hadday saas tahay kule ninkeyga magaalaha allaha kuu sameeye warge ninkaasi wuxuu ahaa nin reer mudug u ahaa oo aad gabadhaasi waxay ahayd gabar reer mudug aad u cajiib ay ahayd ninka reer xamar u ahaa ninkoo qandhahaysa waxaa lagu keenay isbitaal Martina muddo 2 maalin ay ninkaasi qandhada kasoo degi weyso oo baarolka wadne marka sheekada waa sheeko cajiib ah insha Allah waxa waaye hala share gareeyo sheekooyin saan aad u qurux badan insha Allah waan idinkeena hadduu alla idmo aad u maasantiin tan muuqaalkeena daba intaan ka kulmayno السلام عليكم. السلام عليكم.